السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada youtube-keena maskax kobciya official. waxaan maanta ka hadlaynaa barnaamij ku saabsan forex khaas ahaan kambaniyada sameeya investmentiga. run ahaantii maalmaha kan waxa aad u soo badanaya kambaniyada sameeya maalgelinta. waxaan ka hadlaynaa kambani kamid ah kambaniyaasha ugu caansan ayaamihii u dambeysayna xawaare baan ku socda. kambaniga magaciisa waxa la yiraahdaa Fund Talent. wuxuu bixiyaa dabcan investment. fadhigiisu waxa weeye waa wadanka Canada. sidaan wada ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ku habsatay shaqo la'aan aad u badan. adduunka haddeerana wuxuu noqday dabcan shaqooyinka wax iskugu soo aruureen online. marka waxaan macluumaad kooban ka bixinaynaa kambaniga kan iyo waxyaalaha uu qabto. kambanigan sidaan ii sheegay waxa la yiraahdaa Fund Talent. waxyaalaha uu qabto waxa kamid ah in qofka xirfadda u leh forex uu dabcan maal geliyo oo uu lacag u dhiibo oo ku shaqeeyo. marka haddii aynu fiirino akoomada uu bixiyo waxa jira dhowr akoon oo ku kala duwan size-ka uu kambaniga kan uu bixiyo. akoon $25,000 lagu shubayo, akoon 50,000, 100,000, 200,000 iyo 300,000. marka bal waxaanu fiirinaynaa akoonka $25,000 waxyaalaha qofka looga baahan yahay inta uu qaybsamaan shuruudaha horyaal iyo dabcan qaabka loo gudbi karo. haddii aynu ku dhufano qaybta maaragtay $25,000 horta qolyaha kan la yiraahdo Fund Talent waxay leeyihiin 3 akoon oo kala madax bannaan. midka koowaad waxa la yiraahdaa Classic, kaaga baahna inaad challenge madho. isdiiwaangelintu waxa weeye $155 oo wixii profit ah aad samaysid waxaad leedahay 10%. sidoo kale maaragtay waxa laga rabaa fee billah oo $75. sidoo kale waxa jira akoon la yiraahdo Mujeda Aggressive. kii hore wax weyn kama duwana oo dabcan isdiiwaangelintu waxa weeye $165. wax challenge ah kama rabo oo haddii aad lacagta bixisid toos wax lagu dhiibayaa akoon ay ku jidho $25,000. marka profitka aad samaysid waxaad ku leedahay adigu 20% oo haddii aad 25,000 aad ku dadhin $1,000 waxaad leedahay adigu $200. $800 soo hadhayna waxa iska leh qoliyaha kambaniga kan samaystay. balse midka saddexaad oo anigu aan u jeclahay waxa weeye qaybta challenge-ga. qaybta challenge-ga isdiiwaangelinteedu waxa weeye $155. wax fee ah oo bilaa lagama rabo. wixii profit ah aad samaysidna waxaad ku leedahay 80%. macnuhu waxa weeye haddii 25,000 lagu dhiibay aad ku dadhid $1,000 adigu waxaad leedahay $800. 200na waxa iska leh qoliyahan kambanigan iska leh. marka challenge-gan wuxuu leeyahay laba face challenge. labada face haddii aad ka gudubtid waxa farta laga saarayaa akoonka ay ku jidho maaragtay $25,000. marka challenge-ga koowaad waxa laga rabaa inaad 8% aad ku dadhid oo dabcan waxa laga rabaa inaad maaragtay 25,000 lagu dhiibay aad ku dadhid $2,000. marka $2,000 haddii aad ku dadhid waxa lagu gudbinayaa phase 2. phase 2 waxa laga rabaa 4% inaad ku dadhid capitalka oo ah $1,000. sidoo kale waxa jira waxa la yiraahdo maximum daily loss iyo maximum loss. macnuhu waxa weeye $25,000 lagu dhiibay haddii aad hal maalin ku khasaadid $1,250 akoonkaas waa laga xirayaa. sidoo kale khasaaraha guud haddii uu gaaro $2,500 sidoo kale akoonka waa laga xirayaa. oo waxa lagu kala saarayaa halkaas qofka aqoonta leh iyo qofka iska gal ah oo dabcan iskaga nasiibsa ah. sidoo kale maaragtay haddii akoonka capitalka maaragtay $25,000 aadan waxba ku darin oo 30 maalmood ee lagu qabtayna ay gaadho maaragtay capitalkiina uu hoos u dhaco. tusaale ahaan $25,000 lagu dhiibay aad $10 khasaadid 30 maalmood ee lagu qabtayna aad gaadhid sidoo kale akoonka waa laga xirayaa. balse waxyaalaha aan aad ugu jeclahay qoliyaha Fund Talent waxa kamid ah waxa weeye in
haddii aad 30 maalmood gaadhid isla markaana challenge-ga aadan ka gudbin balse profit yar aad ku dadhid kabitaalkii tusaale ahaan 25 kun oo lagu dhiibay aad ku dadhid $100 oo faa'iido ah akoonka laga xirimayo waxay ku siinayaan chance kale oo aad mujeedaa aad uga faa'iidaystid oo challenge-ga aad uga gudubtid oo 30 cisho kale bay ku siinayaan oo ka xirimayaan akoonka waana waxyaalaha uu kaga fiican yahay kambaniyo badan oo investmentiga sameeya sidoo kale haddii aad challenge-gan ku gudubtid lacagtii diiwaangelinta ahayd $155 ahayd dib baa lagugu soo celinaya oo refund baa la sameynaya sidoo kale waxyaalaha uu ku fiican yahay Fund Talent-ga waxa ka mid ah in labadii isbuucba aad withdraw sameyn ka dhid hal mar maaragtay shuruudaha qolyahan Fund Talent waxa ka mid ah in maaragtay bishii aad 12 maalmood oo ka mid ah aad trade fudud 30 maalmood aad trade gareynaysid waxa khasab ah 12 maalmood oo ka mid ah inaad fudud trade ilaahuma aad ku fudud lot size aad u yaro 0.01 balse waxa khasab 12 maalmood inaad fudud bil walba muujida trade sidoo kale waxa jira waxyaalo badan oo maaragtay aad ugu wanaagsan yahay qolyahan Fund Talent-ga la yiraahdo akoomadu way kala duwan yihiin kaliya hadda waxaan sharaxaynaa akoonka $25,000 waxa jira akoon $50,000 mid $100,000 sidoo kale oo la isku diiwaan galiyay maaragtay $610 marka concept-ga guud ba hadda inaga siinaya insha Allah taala qof walba oo daneynaya inuu iska diiwaan galiyo kambaniga Fund Talent-ga waxaan diyaar u lahay inaan la garab istaago wax allaale wixii aan kala kulmay wixii aan ku dhaamo iyo qaab walba aan ku caawin karo aad baad mahadsantihiin waxoogaa meel jaama baan ku duubayaa muuqaalkan degdega ah sidoo kale waxaan soo kordhinaynaa waan YouTube-keena maskax kobciyo soo gelin doonaa insha Allah taala analysis oo weekly analysis baan soo gelin doonaa insha Allah taala si ay dhalinyarada uga qaataan concept lacagaha jahooyinka ay aadayaan isbuucaas insha Allah taala hoosna waxaan soo dhigayaa description-ka waxaan soo dhigayaa linkiga Telegram-keena nagu soo biir wixii aad qabtidna insha Allah taala nala share garee aad baad u mahadsantahiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh